Waxaan maanta dabagal iyo falaqeyn aan ku samayn doonaa sida aad ciwaanka ka aragtaan marka ciyaarta sariirta la samaynayo misena haweenaydu sara marto taasi oo raaxo iyo dareen badan ku soo dabaaqda wakhtiga galmada. Waana mid ragga ay xasuusan doonaan wakhti walba. Soomaalidu waxaad moodaa inay kadib dhacday horumarka ay gaareen ummada dunida. Meel walba horumar ayaa laga gaaray haddii ay ahaan lahayd aqoonta waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan heerarka aqoonta. Maanta waxaan idinka shaafin doonaa aqoonta galmada taas oo bulsho weynta adduunka horumar la taaban karo ka gaareen dhinaca aqoonta galmada. Waxaadna channelkan baro galmada u istaagay jaahil bixinta iyo horumarinta dadkooda dhanka sariirta. Haddaba baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in haweenaydu marka ay sara marto macaan si badan ninku dareemayo. Misena ninka ayaa faa'iidooyin badan ugu jiraan marka ay haweenaydu sara marto. Waxaase ka mid ah in ragga durbaba biyo-baxa ay isku celcelis wax yar ceshan karaan biyaha marka ay haweenaydu sara marto. Dumarka ayaan ugu baaqayaa marka ay dul saaran tahay saygeeda in aysan samayn dhaqdhaqaaq badan sida iyada oo isku qabqabata xubinteeda taranka, iyada oo si aad ah iskugu sihin ama iskugu luxin sokoryarowga macaanaheeda. Waxaa kale oo muhiim ah inay samayso naagta xasilooni ayadoon u samayn si boobsiis ah galmada, markaas waxa ay awoodaysaa in ninku u celin karo biyaha degdega ku baxaya. Dardaaran. Ragga ayaa oranayaa biyo-baxaada dawo uga dhig iyo in haweenaydaadu kaa sara marto uguna baaqdo in aysan si awood ku dheehan tahay u kilkilin xubinteeda taranka. Muhiimadda ugu weyna waxay tahay haddii aad tahay qof biyaha ciyow ka imaada in aadan niyeysan marka ay biyuhu kaa soo dhow yihiin maskaxdaada ka saar oo maankaaga geli sheeko waayo ah iyo filimaanta cabsida ah durbaba waad ilooweysaa biyihii soo socday. Walaal haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar. Waxaan kuu ballanqaadi doonaa haddii aad nagu xirnaato in aad heli doonto cashiro kaa caawin doono macaanka galmada iyo raaxada sariirta.